sida waxa xaqiiqa oo dadkina reer Somaliland ay aaminsan yihiin aqoonsigu ama sharciyadu inay kaga maqan tahay maxay ahayd tolay Soomaaliya taasoo xaqiiqdii aan ahayn wax jira waayo imika waxaan ku tilmaami karaa dastuurkeena qodobka koowaad ee tilmaamaya Somaliland waxay tahay wuxuu sheegayaa qodobkiisa koowaad Somaliland inay ku biirtay dalka waxa weeye Soomaaliya si ay u sameeyaan dalka waxa weeye loo yaqaano Soomaaliya waa isla Soomaaliya Somaliland waxay ku biirtay Soomaaliya waxayna yani isugu biireen si ay u sameeyaan Soomaaliya iyadoo la sii daba dhigay magaca Somali Republic oo wax jiraba aan ahayn meelna aan ku qornayn inta waxa maanta ku qoran waxay tahay yaala waa Soomaaliya haddaba inagoo dastuurka inaynu Soomaaliya ku biirnay oo waxa weeye aynu la sameynay dal la yiraahdo Soomaaliya waa maxay yani xaqiiqada dadka reer Somaliland ay uga yaacayaan Soomaaliya way dalbad ku biirtay adiga haba cadeynaya dastuurkaagii baa cadeynaya in Soomaaliya ku biirtay deeg waqtiga hadda dib ugu laabano 1960kii waxa la yiraahdaa waxa isku biiray Soomaaliya iyo Somaliland wax isku biirayna ma jiraan qofkii document keeni kara wax cadeyna keeni kara sharciyan baan anigu ka hadlaya qof keeni kara sharciyan waxa weeye محمد ديغو وقت عادي كل شيء لكن ما لا أورن كان كادون تبا كدك أما لحدن كدك أما كوبي سجاشن كدك سيا دون تبا كدك واحد فرتا أو سومالي لنا قنصية اللجور هذين أيو أو أكتفا نوع الضرب هالنقطة حكومة دي كلا دونا ميا دركتي وأيو واحد مدعين أرنت الدومستيكا ما أرمها جدوه أي كعلوس فيهن maxaan ku arrimaha ictiraafraadiska imikada waqti xaadirka xildhibaano Mareykan baa isxil qaamay waxay isu xil qaameen in Somaliland Mareykanku ictiraafo waa dalka adduunka ugu awoodda weyn kongareeskiisii bay dhex taallaa dawladdeennii Somaliland fartgelmayso taaba sidkeeda Xasan Sheekh wiiganoo kaliya Washington Post buu ku soo qoray article uu kaga soo horjeeda arrinta wuxuu sameeyay sanduuq lacag ilaa 600 milyan oo dollar lagu kharash gareynayo in arrinka lagaga hortago laakiin inaga Somaliland haday tahay qurbateegeeda reer Mareykan haday tahay dawladda shidan wax danayna oo ka muuqato abatayda ma jira waxay arrintan kalifaysaa xildhibaanadii arrintan keenay inay arrinkan boori ku noqdaan ay yiraahdaan de waa la idin kula dagaalamayaa laakiin dadkii aad u wadeen badanayn maayaan marka what is the point سعيدو سؤال شرطة عن رنتي أي تهي إنه ويديه تذكر المسؤولين تاع الدولة تشوفين كوقت حاضركم أي أول حاجة تهي قلت سؤال الرول ما ملاد هاي يكون هذين السؤال إنه نلعب بقى فانسك رول ما بقول ملاد هاي إكسواش سافرتش ويدين مغن تذكر أنا بمي هي سعيدو أمشن إني سؤال اعتراف مريكنكم نو حقوق اعتراف يعني سؤالها صدم وحياه وبعض ضد كان مسؤولين تلا ويديو لا يراضوا ورثوا احنا رادين عشان الذي ما رادين الا محو يحي لكن هذيك لفتها لا سويدي سمعنا هين هرتي من رادينيا waxaan ku leeyahay xildhibaano isxil qaamay oo Mareykan xildhibaano isxil qaamay oo Mareykan ayaa Soomaaliya la dagaalamaysa madaxweynihii Soomaaliya article jaraa'idka ugu afka dhaadheer ayuu Xasan Washington Post waa one of the jaraa'idkiyada ugu afka dhaadheer bay ku jirtaa ee Mareykanku akhristo ayuu Xasan Sheekh argumentkiisa iyo doodiisa soo dhigay uu leeyahay Trump xaq uma laha inuu Soomaaliya kala qaybiyo khatar buu adduunka gelinaya arrinta dib uga istaago waxaan ku yiri miisaaniyad iyo budget baa loo qoray hay'ad u dooda Soomaaliya oo ay ku bixinayaan lacag ka badan $500,000 $100,000 bishii يعني وانيو كل شرير وين بقى من نيابة لو قبطي اللي يصير شدارن كان حل بانو كونغرس كوتشرا أي لا عمل هربوديس قبل فلسطينية أو يدنا كونغرس كوتشر أمريكان أيها كمل هل كان قلت المهمة ماشان يريان غير Soomaaliya إن أي Soomaal ماشان أمريكان كوكا اعتراف هي Soomaal لا بنكوشي كره يعني اعتراف هي Soomaal لكين كتو
وهشيس كان NDA قال لو رجلي NDA قال مالي واحد أسأل لو رجلي دفاع أمريكا كي وحيابات إني بيش كسميتان بربرة كاسا شيء before maaragtay aan base ka laga sameyn berbera inay wax weeye Mareykanku siiyo aqoonsi sharciyad inuu siiyo inuu aqoonsan yahay Soomaaliland oo halkaas iyagu nimankan ka duulayaan oo ka dagaalamayaan qodobkaas horta tilmaamaya laakiin sida aad sheegtay wax effort ah ma haba rule ba si guud Soomaaliland ay wax ku raadinayso waxaan ku tilmaami karaa 2012 waqtigii markii koobaad la fariistay Soomaaliya inaadaro Somaliland ayaa ka saartay qayb kamida waxaan ay iminka ku jiraan chapter 7 adeeg waxaana xaqiiqdu ay tahay aan ku soo gabagabeynay maadaama waqtigu uu yar yahay waan jeclaanaa wax badan tilmaamo laakiin waan ku iman doonaa Somaliland waqtigaas kulmiye waxa loo bandhigay lacag dadkeenu ma aaminsana yani ma oga war baarlamaanka guurtiday wax weeye wakiilada ilaa wax weeye xukuumad kasta oo dalka timaada intaas oo billions aba lagu intaas karaya in qadiyada Somaliland ay ka aamusan waana qadi waxa maanta loogu yeeray wax weeye imaaraadka wax weeye madaxweynaha Abdulrahman Abdullahi sidaas lagu yeeray jiray madaxweynayaashii kale in la yiraahdo qadiyadan ka aamusa investment dalka lagu sameeynaya waa sidan laqaala la yisiinaya لأنه حديث Somaliland شرعية وما عنده وزارة معلومات هي شركة صومالية وقرنا إسرائيل محوها ما في أي شيء صارين أي كنت ما مية صومالية وزارة معلومات هي شركة صومالية فوحكى الصوب حماد شيء كنت ما مية Somaliland إن يتهي self declared وهو independent state مرهم ما يسكر هذا وما كش ويا اللي هو صومالي وكوية اللي حقيقي قاعدون كوية لا يعني يعني حيستا إن محيه هيطلع بروفايل كنا عاسة أنا أوجي أتكون مش توصلت أي وحوية إن سوماليا لم يدوري سؤال كان لو يدور نسيو الدنيا مياد أركتن عيد كلا أو كحل بيس أو لا سوماليا يا سوماليا ما يسكو بيري أما 1960 جيبا كودي شراي لا يسكو بيري نو وإحنا واحد سوماليا أي أنسين حقيقة كوباد حيستا أنا كسوق بجميع واحد هاي وحوي Somaliland حيستا وحوي دستور كقدر كوباد رامية إن Somaliland كبرت صومالية أو وحوي أي سمية وحلا يقنا صومالية قدر كهذه Somaliland ما يسكساتو شروطه كلا وحوي أن state أي لما يستفتو Somaliland ست لما يستلم واحد وكلين جرين كريسا إن محوها شرعية دي عالمي جاي لكن ساعتين من الرجال سيدا من بتسكين قرية هي بين الراعينا وسوماليland 1992 وكل في الصومالية بين أساس سنين كوسو عنه بين قوة بيننا أنا ما قررنا يدها كن نقول لما أنا شو أنا محسنتي هذه بعض ما بان ما يمقلسها ها بان هو ما عرقلته هرتاجن Somaliland احتراف كيدو أيان يسويدين نيو تايوان تهرجيسين أو فريدة محين لوجو فريدة هذين الهشيس من يوم جرع سميت ده بالكلي واي تايوان استاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم نمر كورة runtii muxuu ahaa jafka waxa koowaad ee Somaliland marka amniga laga yimaado number 2 waxaynoo ahayn istiraafayno اعترافكاس أنو هذا سوكوبه وحنا كاين أن سيدي حيد لغة شقين بماركة أو لور هادين دولتي كادم بي مكان غير وتي تي لايو والشقيان دي أول كريان وها إن محمد شماعي قال كنتي قاعد بوسنو دداري لكن سيدي عايد لوقا ما شقين إلا ذا هرتاجن هذا هو محي أنا هاركا لبا وحبا وقوين وها هرتاجن لبا ذا وحي هرتاجن عالم كانوا حكوسين إيجين وحويان عيدا مذا هذا يو أمني جودهاجة
oo aad dhisto oo aad adkaysid oo aan wixii ku dhacay Somaliland maartay hoosaasada ahaa Solbari kaga dhacay oo kale iyo ciidamadeedii aan ku dhicin ciidamo caaglayaala mushahar ku qaadan oo maanta sida la sheegayo number aad u badan mar raba numberka sheege ayaa laga helay Hargeysa iska shaqaysanay dukaamiyo bakhaar iska haysta haddana lacag ku qaata kow dalka ciidamadiisa waa in la dhiso booliska way dhiseen laakiin militariga in xoog loo dhiso aad loo qalabeeyo noqdo ciidan qaybihiisa kala duwan muxuu ahaa ay yihiin qaar lagu tashado cadow laftiisa ku tashado aan habar kasta isugu soo habar waanin taasi waa kow waa in ciidamada qaranka xoog loo yeela sababaha dib u dhigay ictiraafka taasaa ka mid ah oo mid kasta wuxuu leeyahay dad maanta ictiraaftid oo la jiiro Somaliland-ba waxaanay Soomaaliya oo seegaysan buu leeyahay waa in noqotaa haddii lagu siiyo inaad noqoto qof cishada oo ilaashan kara ictiraafka iyo dowladnimada lagu siiyey in loo dowladda keligeed waxa ma qaban kartee diyaar loo ahaado oo dagaalka in hadduu dhaco laga wada qayb galo beelaha aan ku jirin aan lahayn ciidan madaniya halka waxaan ka maqlaa maalin walba dad yidhaahda ciidan madaniya looma baahna hala kala diro waxaan arkaa dad cadow oo lasoo dhex marsaday inay yihiin wuxuu ninkii gabiyey dambaa reerka keentay xarago looma soo degini daarood siduu beri ahaa loo dad qalatooye adeer dambaa keentay in la samaysto jabhadahan madaniga waana kuwa ka baqaan ma garanaysaa maxay haytay nimankani waxyaaba badan oo maaragtay dowladda dusha laga saari lahaana iyagaaba ka khafiifinayo laba qabiilo isdilayay noqonayaan waanay ka baqaan ku xisaabtamaan haddaba waxaan u sheegayaa muwaadiniinta reer Somaliland beelaha waliba laga bilaabo dee magaalada Sheekh iyo wixii ka sheegay ilaa iyo loo yacdo waxaan leeyahay inta leedin kala dira ciidamada halka fadhiyo meeshan hadii la soo shabsado kuwane adar waxa weeyaan ciidamo soo keensada madaniya hubka iyo baabuurta soo iibiyo soo saara kaalayo ka qayb gala difaaca dalka tomorrow markaynu waxaan iska dhicino insha Allah taala oo iska dhicinaynaa marka ciidamadaas waxay noqonayaan ciidamo inoo diyaara oo tababar qabo oo khibrad iyo experience leh hubkoodii wata oo ciidamada Soomaaliland toos ugu biiray ay noqonayaan marka inta iska diisaan nacnacda iyo maartay dad ciidamada kala jibinaysan adeer keensada meeshan waxa weeyaan looma samaysan ciidamada maxay tahay madaniga in khalkhal lagu geliyo amniga dibadda gudaha in qabaylku isku dila looma samayn dad cadow laga hortagaya maalba kuwa karbaasho weeyaan oo kuwa ina muxuu haybir madoobiyi dilay weeyaan waa raga ergaabo wadara ka dhigay wargeela boqorkeen jooga weeyaan soo garmays marka hadalkaas jilicsan inaan lagu soo degdegin ciidamada madaniga in la caawiyo hub iyo dhaqaale iyo aan ognahay anagu taageero badan bay u baahan yihiin halkii taageero la siin lahaa in lagu daro tacaadi waa khalad iyo meel ka dhac weyn weeyaan Somaliland guul buu rajaynayaa waana guuleysanaysaa markasta oo Somaliland culays soo fuulo way ka dabaalataa cadowgeeda wareed kama adkaado kamana adkaanayo insha Allah taala maantana aad baynu midaysana maalin ka midnimo badan ma jirto marka barbarka kaga baxda waa bakayla qaleen waxaan leeyahay qolooyinka soo hanjabaya ee la muxuu ahaa dagaalan soo qaadana waxba naga siinina ta kale guryaha Ceergaabo iyo Hargeysa iyo Burco iyo Berbera ku lahaydeen dadka dhiigooda staadiseen maantana rabtaan daataan iclaamisan garaad iyo suldaanow waa magtoodii guriga ugu soo noqonaysaana ma jiro Ceergaabo iyo dhulkaas ugu soo noqonaysa ma jirto inaad ummadii dhiigooda daadisid oo tiraahday haddana maxay tahay guriga ku lahaa Ceergaabo ma soconayso wixii dhacana adiga ka mas'uula oo salaam alaykum